بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن صاحبي halkan waa YouTube keena nuxurka wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid noqon doona filla Soomaaliya oo cabsi aad u xoogan ay soo wajahday kadib qaraxyadii ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. mucaaradka farmaajo ayay ku eedeeyeen inuusan diyaar u ahayn in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo lagu cadaadinayo inuu runta u sheegay madaxda isku khilaafsan siyaasadda Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliya oo qiil la yaab leh u keentay iibintii tiyaatarka qaranka ee dhawaan hor istaaga lagu sameeyay. dagaal geystay khasaare kala duwan waxa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay gobolka Hiiraan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan iyo haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena nuxurka wararka waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto, muuqaalkana like aad inoo saarto, asxaabtaadana aad u share garayso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale mid aan u yeelano. waa hagaag haddii aynu ku bilowno iyadoo maalmihii la soo dhaafay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo isdaba joog ah ayaa markaan waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan in filla Soomaaliya cabsi aad u xoogan markaa ay soo wajahday kadib qaraxyadii isxigxigay ee ka dhacay Muqdisho iyo Maashi Faad Yaasiin Xaaji Daahir ugu soo laabtay gudaha Muqdisho. waxaa cabsi xoog leh markaan ay soo food saartay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo isagu weli ku sugan gudaha filla Soomaaliya. waxaa si weyn loo adkeeyay amniga xarunta madaxtooyada Soomaaliya xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed iyadoo sidoo kale shalay qarax xoogan oo ismiidaamin ah uu ka dhacay kontarool ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo filla Soomaaliya gaar ahaan kan ceelgaabta. ciidamo feejigan ayaa sidoo kale la soo dhigay wadooyinka gala madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan kontaroolada laga ilaaliyo wadooyinka gala iyo kuwa kale ee ka baxa xarunta filla Soomaaliya. sida wararku ay sheegayaan ciidamada ayaa wadooyinka gala filla Soomaaliya waxay u diidayaan gaadiidka ay wataan dadka caadiga ah iyo sidoo kale shaqaalaha dawladeed qaarkood, waxaana sidoo kale wadooyinkaas kaliya loo ogol yahay gaadiidka mas'uuliyiinta iyo kuwa kale ee saraakiisha ciidamada dawladda ay wataan. qarax ismiidaamin ah oo shalay ka dhacay kontaroolka ceelgaabta ee laga ilaaliyo filla Soomaaliya ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 10 qof oo u badnaa shacab, waxaana goobtaasi ku qarxay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa inkastoo markii dambe dagaalyahanada Al-Shabaab ay sheegteen mas'uuliyadda qaraxaasi. ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid sii xumaanaya xilli madaxda ugu sarreysa dalka uu dhexdooda ka jiro khilaaf, waxaana sidoo kale jira khilaaf u dhaxeeya wasaaradda amniga iyo sidoo kale laamaha ammaanka gobolka Banaadir. wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya dhawaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sidoo kale Cali Yar Cali oo ah mas'uulka ku magacaaban amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa xiriirkooda dhankooda waxa uu yahay mid aad u xun walow isagu uu yahay mid markaa laga baaqsan karo. dowladda Qatar ayaa sidoo kale waxa ay war ka soo saartay qaraxii ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee Muqdisho kaas oo lala bartilmaameedsaday bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku shaacisay inay si xoogan u cambaaraynayso weerarkii sababay dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca dad badan oo shacab ah markaa iyagu waxyeello ay ka soo gaartay. sidoo kale dowladda Qatar ayaa tacsi u dirtay dowladda Soomaaliya, shacabka iyo sidoo kale ehelada dadkii ku dhintay qaraxaas iyadoo sidoo kale kuwa kale ee dhaawacyadu ay soo gaareen u rajaysay caafimaad degdeg ah. dowladda Qatar ayaa mar kale wax ay ku celisay diidmadeeda rabshadaha iyo sidoo kale kuwa kale ee amniga lidiga ku ah, waxayna sidoo kale intaas ku dartay inay garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. weerarkii ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay aaga filla Soomaaliya gaar ahaan ceelgaabta ayaana waxaa ku dhintay dad badan oo shacab ah, waxaana sidoo kale dhaawacyo ay ka soo gaareen tiro kale iyadoo sidoo kale dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaartay hadda lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. mas'uuliyadda qaraxaas ayaa waxaa dhabarka saaratay kooxda Al-Shabaab oo iyadu shaacisay inay la beegsatay mas'uuliyiin iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. waa siday hadalka u dhigtay. maalmihii la soo dhaafay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ku soo badanayay qaraxyada iyo sidoo kale dilalka joogtada ah iyadoo sidoo kale labada maalmood ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay martigelisay 2 qarax oo ismiidaamin ah. midka koobaad ayaana waxa uu ka dhacay filla Baydhabo halka midka kale uu ka dhacay meel aan sidaa kaga fogeyn filla Soomaaliya isla markaana ka mid ah irdaha laga ilaaliyo xarunta filla Soomaaliya uu ku sugan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa markan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay u jeediyeen eedayn aad u kulul. war saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya isla markaana looga hadlay
xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan midda ka taagan villa Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka dalka ayaa waxa iyagu eedeymo iyo sidoo kale arrimo kale ay ugu jeediyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu horeyn golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa garab istaag u muujiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyagoo sidoo kale shaaca ka qaaday inay garab taagan yihiin qabashada doorashada dalka ee 2021 taas oo iyadoo hadda bilow ka ah xarumaha dowlad goboleedyada dalka. golaha ayaa qoraalkan waxa ay ku soo koobeen 6 qodob oo ay kaga hadleen doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dalka. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa ay ku dhiirigeliyeen inuu dardargeliyo howlaha doorashooyinka gacantan uu ku dhigo amniga dalka marnaba uusan gorgortan ka gelin heshiiskii 27 May. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa golaha wada tashiga qaran sidoo kale waxa ay ku booriyeen in la dedejiyo howlaha doorashooyinka loona fududeeyo sida ugu sahlan ee degdeg ah inay ku qabsoomi karto doorashada. midowga musharaxiinta sidoo kale ciidamada qalabka sida ayay sidoo kale ugu baaqeen in aysan ku dhaxmilmin siyaasadda isla markaana ay garab istaag u muujiyaan golaha wada tashiga qaran sida dilka ay kaga dhici lahayd doorasho. waxayna sidoo kale beesha caalamka ay ugu baaqeen in ay golaha wada tashiga qaran ku gacan siiyaan qabsoomida doorasho degdeg ah. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo ka kooban dhammaan musharaxiinta u hanqaltaagaya doorashada dhawaan ka dhici doonta gudaha wadanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in indhaha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada shirqoolka ay maleegayaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday iyo agaasimihii hore ee hadda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya si ay u carqaladeeyaan howlaha doorashooyinka una abaabulaan xasilooni darro iyo sidoo kale qalqal amni waa sidii hadalka u dhigeen. golaha midowga musharaxiinta ayaa ugu dambeyn waxa iyagu ay dalbadeen in cadaalad loo helo kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo ehelkeeda waxayna sidoo kale ugu baaqeen hay'adaha garsoorka in kiiskaas iyaga loo daayo isla markaana warcad markaa ay ka keenaan. maalmihii la soo dhaafay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka taagnaa isqabqabsi aad u xoogan oo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble kuwaas oo iyagu isku khilaafay kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo sidoo kale shaqo ka ciirintii agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasin Xaaji Daahir. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay garab istaagay u muujinayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyagoo sidoo kale dhowr jeer ku dhiirigeliyay inuusan markaa meesha ka bixin mas'uuliyiinta hadda uu isagu u magacaabay. waxayna sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddooyinkii ugu dambeeyay ku eedeynayeen inuusan diyaar u ahayn in Soomaaliya gudaheeda ay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa iyagu sidoo kale walaacyo xoogan ay ka muujinayeen qalqal amni darro oo muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. si gaar ah waxay aad kaga hadleen qarxii ismiinaaminta ah ee shalay ka dhacay mid kamid ah irdaha laga ilaaliyo xarunta villa Soomaaliya oo uu ku sugan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku guul dareystay dadaalo uu xal ugu raadinayay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble. wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug aadna ugu dhow madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay inuu fashilmay dadaaladii xalka loogu raadinayay ee uu waday madaxweynaha iyagoo sidoo kale ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu caqabad ku noqday wada hadaladii u socday isla markaana garwadeynka ay ka hayeen Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. madaxweynaha maamulka Galmudug oo weli jooga gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaan weli ka hadlin fashilkii ku yimid waanwaantii isagu uu waday waxa uuna sidoo kale uu ka gaabsaday inuu soo bandhigo waxa keenay fashilka iyo sidoo kale cidda mas'uulka ka ahayd. siyaasiyiinta iyo sidoo kale mas'uuliyiin siyaabooyin kala duwan oo la kulmay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaana waxay ku cadaadinayaan inuu ka hadlo sababta fashilka waanwaanta markaa uu waday ku keentay iyo cidda markaa iskale mas'uuliyadda ah in lagu guul dareysto waanwaantii isagu markaa uu waday. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo siyaasad ahaan aaminsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana dhankiisa u janjeera ayaa diidan inuu ka hadlo fashilka wada hadallada uuna eedda dusha u saaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana sidoo kale la sheegay inuusan Qoorqoor weli quus ka taagnayn inuu isku dayo in mar kale waanwaan marka uu dhex dhigo madaxda ugu sareysa dalka. sida xogaha lagu helayo siyaasiyiinta la kulmay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo Galmudug ka soo jeeda ayaa uga digay inuu dhinac la safto gaar ahaan inuu aad markaa ula safto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna ugu goodiyeen haddii markaa uu tallaabadaasi qaado
in iyaduna markaa ay dhabar ka xiji doonaan maamulkiisa. axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa dhowaan la kulmay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo markii horeba uu isagu markaa ka aragti duwanaa, mana jirto ilaa iyo hadda wax war ah uu ka soo saaray madaxweynaha maamulka galmudug khilaafka soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dalka, islamarkaana isagu muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka qayb ahaa mas-uuliyiinta waanwaantaasi waday. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda xilgaarsiinta cusmaan abuukar dube oo maanta hadal ka jeediyey xaflad lagu qabtay tiyaatarka qaranka ayaa qiil la yaab leh waxa uu sameeyey dhulkii tiyaatarka qaranka ee isagu uu bixiyey, balse markii dambe laga laabtay kadib markii caro aad u xoogan ay ka dhalatay. wasiir dube ayaa sheegay in sababta dhulkaas uu ku bixiyey ay tahay imaanshaha fanaaniin reer suudaan ah, balse tiyaatarku uu yahay meel aan dad lagu soo dhoweyn karin oo xitaa aanan lahayn goobo markaa lagu gado waxyaabaha cabitaanada ahi. cusmaan abuukar dube ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday inuu u tegay maareeyaha tiyaatarka qaranka, islamarkaana uu weydiiyey in tiyaatarka ay imaan karaan fanaaniin ajaaniib ah, isagoo sidoo kale maareeyuhu ugu jawaabay in xitaa tiyaatarka uusan lahayn meelo lagu gado cabitaan, islamarkaana aysan ku oolin meel wax lagu cabi karo. cusmaan abuukar dube ayaa sidoo kale markaas waxa uu go-aan ku gaaray in markaa biibito halkaas laga dhiso, iyadoo sidoo kale markii dambe ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble arrintaasi oo ris istaag ku sameeyey. wasiir dube ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in markii uu saxiixayay laga qayb geliyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku amray in la joojiyo qorshaha markaa lagu bixinayo dhulkaasi. xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka oo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray hubinta iyo sidoo kale xaqiijinta arrintaas la xiriirta bixinta qayb ka mid ah tiyaatarka qaranka ayaa sidoo kale maanta soo saaray amar joojin ah xilli mar hore markaa laga laabtay. xafiiska hantidhowraha guud ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu faray wasiirka wasaaradda warfaafinta inuu si degdeg ah markaa u jeejiyo gabi ahaanba arrinta bixinta dhulka tiyaatarka qaranka muddo ku eg 72 saacadood gudahood ah oo maanta markaa iyadu ka bilaabanaysa, maadaama qoraal rasmi ah arrintaasi laga soo saaray. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato youtube-keena nuxurka wararka, waxaan kaa codsanaynaa in youtube-ka subscribe inoo saarto, muuqaalkana like aad inoo saarto, asxaabtaadana aad u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulimadaan u yeelano. waana ku mahadsantahay daawashadaada.